madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa dib isaga celiyay dalab ugu yimid dhanka Itoobiya kadib markii xukuumadda Abiy Ahmed ay si toos ah u sheegtay inay doonayso in diyaarado iyo qalab casri ah dhankaas ay ka soo iibsato. Erdogan ayaa sababta u diiday ay tahay in uu taageero iyo garab xooggan u siinayo Soomaaliya, Itoobiyana ay doonayso in ay kaga jawaabto arrimahaasi falcelin la mid ah tan Soomaaliya ay samaysay. Ilahan muhiimka ayaa warbaahinta Xuransi waxay u sheegeen in dowladaha Turkiga iyo Itoobiya oo inta badan xiriir iyo cilaaqaad ka dhaxeeyay laakiin aanay gaarsiisnayn dhanka iskaashiga amniga ama ciidankooda in loo qalabeeyo in markaan xukuumadda Addis ay doonayso qaabkii ay u soo jiidan lahayd indhaha Turkiga. Walow maamulka madaxweyne Erdogan uu sheegay in aanay suuragal noqon karin cilaaqaadka kala dhaxeeya Soomaaliya dartiis in Itoobiya uu ka iibiyo hubka iyo agabka kale ay u baahan tahay sida mas'uuliyiintu ay tilmaameen. Saraakiil iyo xubno khubaro ah ayaa waxay sheegeen in Turkiga Soomaaliya uu ku yeeshay saldhigyo waaweyn oo dhanka badda, bariga iyo sidoo kale diyaarada uu hawada Soomaaliya xilligii doono uu biibi karo ama kicin karo, isagoo ujeedkiisu yahay in uu gaaro goobaha loo arko inay yihiin meelaha ugu istiraatiijisan ama ugu muhiimsan dhanka Soomaaliya. Itoobiya oo ciidan Afrikaan ama howlgalka Midowga Afrika ku howlgalaya ka jooga gudaha Soomaaliya ayaa waxay dhowr jeer walaac ka muujisay xaaladda cunaqabateyntii Soomaaliya laga qaaday kadib in dowladda federaalka Soomaaliya ay heshay hub iyo agab kale iyadoo ay soo dhex marayaan dowlado kala duwan sida Itoobiya ay ku dooday. Walow aanay jirin xogo dhammaystiran oo dowladda federaalka Soomaaliya ee ka bixisay arrimaha guud ee ku aadan heshiiskaasi, waxaa jira haddana warar soo baxaya oo sheegaya in mas'uuliyiin ka tirsan Muqdisho ay bilaabeen sidii Ankara ay wala hadli lahaayeen xaaladaha dhanka siyaasadda, taasoo keentay in xaddiga awoodeed iyo kan siyaasadeedba uu sii kordho. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya waxa uu tilmaamay in dowladaha garab istaagaya dhanka iyo dowladda federaalka yihiin kuwa sii kordhaya marba marka ka dambeysa, isagoona sababta arrintaasi ku sheegay inay yihiin arrimo dhowr ah oo deegaanadaasi ka jira. Mas-uul sare oo ka tirsan waaxda difaaca Turkiga ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in dowladdiisa aanay dhici karin in hub ay ka iibiso dhinacyo wada dagaalamaya, taasoo keenaysa in awoodda iyo hubka militari ee dalka Turkiga uu leeyahay in ay dhici karto inay iska hor yimaadaan dagaal ahaan. Si looga hortagana arrimahaasi uu sameeyey in dhinaca uu taageero aanay dhinac kale ugu bixi karin, taasoo keenaysa in Ankara ay ka shaqeyso in awooddeeda militari ay ku tijaabiso geeska Afrika. Ciidamo infantry ah ama ciidanka lugta ee waddanka Turkiga ayaa gudaha Soomaaliya soo galay, iyadoona ciidamadaasi la sheegay inay howlgallo xooggan ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha ilahan ayaa waxay tilmaameen inay socdaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee la xiriira qabsoomidda shirka, iyadoona arrimo dhowr ah calaamad su'aal raacinayo sida in ay xukuumadda Ankara ay sheegayso in ay doonayso difaaca Soomaaliya dhanka badda oo ay ka difaacayso shirkado kala duwan oo koofiyad ah, isla markaana heshiis uu la galay maamulka Cabdiraxmaan Ciro, taa oo keentay in ay dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay sameeyaan iskaashi xooggan. Mid ka mid ah maraakiibta dagaalka waddanka Turkiga oo wada qalab casri ah iyo diyaaradaha nooca dheereeya iyo kuwa aan duuliyaha lahaynba in ay ku soo xirtaan biyaha Soomaaliya soo gaaraan, gaar ahaan dekedda Muqdisho, taa oo abuurtay in xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ay keeni karto culays kale oo dhanka Itoobiya kordhi kara ama ku kordhi kara. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa uu waday dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira in uu helo fursado mar kale uu ku raadinayo dhanka Soomaaliya qaabka uu u kordhi lahaa xiriirka, laakiin dowladda federaalka Soomaaliya oo ka shakisay hadalka inta badan uu ku celceliyo oo ah in Itoobiya uu doonayo marin dhanka badda ah. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed in ay keentay culays xooggan in saraakiisha iyo mas'uuliyiintaba arrimahaas dartii ay soo kordhaan ama ay soo koraan, haddii ay dhacdana
arrimahan culays xooggan dowladda federaalk Soomaaliya uu ku noqon karo. Laakiin si looga hortago waxaa jira wadamo iyo dalal kala duwan oo Soomaaliya ku garabsiinaya qaabkii ay u heli lahayd fursadaha ay xilligan mudan tahay. Wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo. Waad ku mahadsan tahay daawashadii la socodka wararkayga.